wadaagi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay loosku. Haddaba markaan ku hadlayno loosku wuxuu ka qayb qaataa inuu jirka ka nadiifiyo cudurro badan oo dhowr ah, waxaana ka mid ah cudurrada ku dhaca wadnaha, cudurka sokorta iyo cudurrada ku dhici kara halbowlayaasha dhiigga. Haddaba loosku 19% wuxuu ka kooban yahay waa borotiin, waxaana ka mid yahay kuwa ugu faa'iidada badan markii laga hadlayo caafimaad ahaan. Haddaba lambarka 1, loosku waxaa ku jira macdano iyo fiitamiino badan oo ay ka mid yihiin kobarka, magnesiumka iyo fiitamiinada sida B1 vitamin iyo B2 kuwaasoo faa'iido u ah jirka iyo maqaarka. Lambarka 2, wuxuu ka hortagaa dhagaxaha fariisata xameetiga. Cunista loosku waxay ka hortagtaa ama ka hortag u tahay dhagxaanta ku sameysma xameetiga, taasoo badanaa la burburiyo ama xameetida lala saaro. Lambarka 3, maqaarka ayay muhiim u tahay. Loosku waa u muhiim maqaarka sababtoo ah wuxuu yareeyaa laablaabka maqaarka, waxaana ka buuxa fiitamiino sida vitamin C iyo vitamin E. Lambarka 5, wuxuu u wanaagsan yahay niyad-jabka. Loosku waxaa ku jira borotiinno loo yaqaan tryptophan, kaasoo ka qayb qaata samaysanka maaddo kale oo loo yaqaan serotonin, kaasoo u muhiim ah la dagaalanka niyad-jabka. Lambarka 6, wuxuu ka qayb qaataa koritaanka carruurta. Loosku wuxuu muhiim u yahay lafaha iyo murqaha carruurta koraysa, sababtoo ah waxaa ka buuxa fiitamiino kala duwan, waana sababta loogu dardaarmo in carruurta cunno ahaan loo siiyo looska la shiido.